laascaano caasimadda gobolka sool habeenkan waa siraadan tahay oo waxa ay u iftiimaysaa sida ay u kobcayso waa mid ka mid a kuwa dhismaya ee dhabooyinka laga jeexay dabaqyo dhaadheer daaro kale carwooyin meherado camiran iyo bulsho caways nabadgelyo isdhaafaysa markii aan ku cabaarsanay ayaan cawaysinkii ka hoyanay haddaan habeenkii barinay subaxdii dambe ayaan qaadnay jidkan koonfuraada oo aan ku safaray xilligan xilligiisii waa waddada hawd iyo nugaal isku xirta haddii aan soo dhoweeyo waa marinka u dhexeeya laascaano iyo kalabaydh oo 32 kilomitir isu jira jidka waxaan ku safaray sanadkii hore waliba bishan 12 bisheedii waa 2 xilli iyo 2 xaaladood waxaana xoogaystay horumarka jidkan waxa ugu dambeysay jidkan waxa isku xiraa degmooyinka maanta aan ku safrayno waxa isku xiraa degmada laascaano iyo kalabaydh waa ilaa 32 kilomitir oo la rabo in laami laga dhigo jidka December sanadkii hore ayaan ku safaray waxa ilaahay mahadiisa nabadqab aniga maxamuud jaamac iyo waliba kilwe oo sanadkan ay ku cusub tahay sanadkii hore maxamuud jaamac wada soconay isla December teedii inaan nabadgeliyo ku safrayno oo nabadgeliyo markale saaxiibkay maxamed nagu soo dhaweeyo iyo ragiisii kala dhalinyarada ahaa laakiin intaynaan u gudbin isbeddelka dhacay 12 bilood ee u dhaxeeyay labada safar aan xagga kale kaga nimaano oo ka bilowno kalabaydh kana warano halkii awal kalabaydh u ahayd marin ku xira caasimadda gobolka sool ugu horeyn aan kalabaydh wax ka baro waa magaalo ku taal marin istaraatiiji ah oo ka tirsan gobolka sool eegmaabka waxaa wadooyin jeexan ee jaha kasta afka saaray ayaa ina tusaya sida kalabaydh muhiim u tahay oo ay u mudan tahay in ay hesho waddo ku xirta xarunta gobolka sool iyo dalka intiisa kale magaalada marka laga yimaado ee laaska loo socdo waxaa cabaar la soo maraa dhul bannaan oo gaarigu ordo 10 kilomitir ayaa socodku sidaa u sahlan yahay kadibna waxaa la soo gaaraa togan gobdheere waa deegaan kaan yar leh oo hal maqaaxi ku taallo ceelal kama jiraan kamana dhowa laakiin waxaa baca ka hoos qodan yihiin dhirtan dhuuxa sabarradiisa saaran xooluhuna halkaas ayay u soo arooreen oo hadda laga fulinaya halkan waxay kala qaybisaa buuraha nugaaleed iyo xaggan shubaan marka xagga joogno xaggaas ku shubaan wixii xaggan u jeeda biyo waa macaan wixii xaggan u jeeda dhabarkan u jeeda xagga laasaan u jeeda bartaa ayay ka bilaabanayaan kala duwanaanta dhulku dhanka hawdka u jeeda ee aan ka nimi waa mamac biyo macaan xagga nugaasha oo halkan ka bilaabanaysana waa dadib biyaheedu qaraar yihiin markaan isla barqadii halkaas dhaafnay ayaa sii maray dhulkan buuraha yaryar leh waxaa ka muuqda jilaal oo waxaa seegtay dayrtii kolka halkaa xoogaa laga socdo ayaa jidku ku arooraa togan oo caqabadihiisuna ka bilowdaan barta waddadu kaga degto dhuuxan oo in doora hoos loo tago in uu yahay dhagxaan iyo cagaag ka sokow waxaa meel walba kaga furan laag iyo jeex biyaha ku soo dara oo xilli roobaadka go'doon ku keena dadka ku safraya sidoo kale togu waxa uu noqday boholo miiran oo waxaa halis ku sugan inta haadamahan hoos maraysa jidkan waxa uu ahaa midka kaliya awal isku xiri jiray degmada laascaano iyo kalabaydh wadadan waxa ay togtaa togan oo biyo mareen ah waxa la yiraahdaa waqdariya gaadiidleydu iyo dadka deegaanka ee jidkan isticmaali jiray waxay noo sheegeen inay kala kulmaan caqabado badan waliba xilli roobaadka oo mararka qaarkood toga biyo xiraan oo magaalooyinku ay kala go'doomaan mararna ay soo dumaan gabiyadan ama boholahan waaweyn oo ay dhaawac u geystaan jidkaasi sanadka hadir ku jiro laftigiisa ayaa waxa ku soo beegmay gaari iska rogo hawd ka yimi halkaas ku xanimayo ciid baa la go'day niisa cagafta injineerka ayaa looga soo diray laascaano oo lagu baneeyay waa wado in la furo oo la baneeyo oo la furo oo la baneeyo u baahan togaas waxa ku yaal ceelal hawlina waxa ay ka taagan tahay marka ay isku xismaan xooluhu oo inta iyaga iyo gawaaridu isugu soo galaan meelo cidhiidha ay kala mari waayaan jidka waana ka mid caqabadaha keenay in aan lagu sii nagaan wadadan oo meel dhaanta la raadsho caqabadaha looga guuray kaliya markaan tiriyo waa gebiyada waa niista waa xoolihii iyo dadkii iyo ay ku wada filaan weyday iyo gaadiidkii waa haddii alla ku idmahayo waad arki kartaan waxa shidooyinka
intaas iyo in kale oo dhammaantood dhib ku ah socodka laascaano iyo kalabayr ayaa kaliftay in jidkan inta laga guuro kan bidhaamaya loo guntado. aan ku soo noqonno subaxdii aan ka baxnay laascaano waddadaas ayaan qaadnay waxaana jaygan uu ka bilaabanayaa magaalada laascaano dhexdeeda. dhulkani ma samaysnayn safarkayagii hore laakiin saaka waa sibibix jay lagu masaxay. ka hor tacabkan muuqda halka buuraha miirana ma jirin waddo marta oo kalabayr loogu socdaalo. raggii anuu ka dhaamin jiray baan awrku ma mari jirin meesha maantana waad aragtaan heerka ay marayso. awrka dhaanka diiqu ku mari jiray maantana alxamdulillaah rabbil caalamiin ilaahay baa mahadle. iyada oo heerkaas ah ayaa sanadkii 2014 ilaa 2019 lagu sinaysiiyey sahan ka warkeena sida halkani waddo ku noqon karto maadaama ay tahay halka ugu toosan ee laga dhigi karo jid isku xira laascaano iyo kalabayr. runtii markii wadadan la bilaabayay waxaa la yidhi halkan wadda kama bixi karto dadkii deganaa gobolka Sool iyo degmada Kalabayr way adag tahay in wadda laga saaro. maantana waad aragtaan waa wadda la marayo oo baabuurtii rarka siday iyo tii yaryareed iyo tii waaweynayba ay marayaan. sahankii kadib bishii labaad 2020 ayaa laga riixay dhagixii ugu horeeyay. bil kadibna waxaa yimi oo dhagax dhigay wasiirkii horumarinta jidadka iyo gaadiidka Somaliland Cabdullaahi Abubakar Cismaan maamulka gobolka Sool iyo guddiga wadadan Kalabayr dhisaya. waxaa jirtay maalin barbilow adag ay ahayd oo madaraq iyo majarafad kaliya lagu bilaabay oo meel wax laga bilaaban aan la garanay way soo martay. mashruucan waxa uu guntaday bulshada deegaanka oo qurba joogtu ka mid tahay waxaana baritaaray dowladda Somaliland iyadoo hay'ado qalaadna ay gacan ka geysteen kadib kolkii ay arkeen dad u soo jeestay dhulkooda oo dabooyin jeexaya. Soomaalidu waxay tiraahdaa ama dadka caalamku yiraahdo wax qabso wax kula qabtee waxaan u diyaar u nahay inaan wax qabsano ummadda Soomaaliyeedna waxaan ka rajaynaynaa oo aan ka baryaynaa inay nala dhameystiraan wadadan khayr iyo baraka in rajaynaa insha Allah taala. jidkan xilligan waxaa dhisan 12 kiiloomitir oo ah dhulkii ugu adkaa oo adkaysi kadib inta buurihii la kala jeexay jidka laga dhex saaray kadibna inta la simay jay la saaray. taasina waa mid ay hadda u riyaaqeen faa'iidadeeda wadayaasha gaadiidku. wadadan markii hore waxaan kula kulnay caqabado fara badan oo aad u dheer. hadeer waxaan ka soo wareegi jirnay meel fog dhul badan baan soo mari jirnay dhulkii badnaa waan ka raysanay way taas way nagu fogeyd oo meel fog baan ka soo wareegi jirtay haddana markiiba waxaas ka dhacana. waa tallaabo geesinimo oo inta wadajir loo wajahay laga gungaaray. waxaase dhiman oo wali caqabado ka jiraan dhowr meelood oo togan gubad la ka mid yahay. gawaaridu waxa ay ku maraan si adag. injineeraduna waxa ay halkan halkeeda ku sheegeen in ay tahay buundo la saaro. waqti xaadirka kan buundadu waxay rabtaa hawl fara badan waana buundo aad iyo aad u weyn waa bridge aad iyo aad u weyn. waxa lagu qiimeeyay rag injineerada ay qiimeeyay wadada ay ku qiimeeyeen waxa ka mid ah $800,000 waa bridge keligii loogu talagalay in ay ku baxdo. ilaa socoto ayaan ahaynay markaan toga gubadle ee buundada u baahan dhaafnay waxaan tagnay dalcadan afyar oo ah caqabada labaad ee wadadu rabto in laga leexsho. iyadu waa fundhuq wadna qabad ku ah gawaarida yar iyo weyn oo ay rafaad ku hayso kuwa raran ha ugu daraadeena. buurtan baabuurtii waad arkayseen way ka soo degayeen haddana caqabad bay ku tahay oo labada gaari ee iska soo horbaxa iskuma dhaafi karaan. dalcad bay leedahay waana buur aad u adag oo waxa laga soo saaray iyo dhagaxa laga soo saaray inta uu la leeyahay. aad aragtaan waxay u baahan tahay iskaafeetar ka xoog badan kii hore aanu keenay ama aan gelinay wadada oo dejiya dalcadda ka biiya sidii hore odayaashii tii hore ee buundada ay uga soo sheekeeyeen. caqabad labaad weeye tarina laakiin aan wadada u taagnayn. dalcaddan shaqada naawilaysa waxaan u dhaafnay dhanka Kalabayr annaga oo sii dhex maray kura gaagaaban oo wadadu inta ay karimo yaryar ka dhacdo dhex marto. marka la gaaro meermeerka oo ay muddo iyo maal qaadatay in sida loo maro ayaa la tagaa dusha buurta Cusbaali. halkaas wadadu waxa ay la wareegtaa gosha buurta laakiin waxa wali ka dhiman oo ay u baahan tahay in inta la qodo ciidda laga soo saaro oo waliba la dhiso dhinaca banaanka ka xiga si looga gaashanto gawaari ka daadata. subaxdaas waxaa buurta Cusbaali isugu yimi waxgaradka deegaanka oo bogaadinaya waxqabadka hirgalay inta dhimanna dalbanaya in gacan laga geysto. wadadaas oo fayskeedii hore la intifaacsaday gaadiidkuna sida aad arkaysaan
uu isu hor iyo daba marayo waa mahad ilaahay mar labaad waxaa hadda la bilaabayaa fayskii labaad oo isaguna u baahan in cid kasta oo mudanaa cid kasta oo islaama inay ka qayb qaataan labada dalcadood ee Afyar iyo Cusbaaley dhowr shil ayaa ka dhacay sanadkan gudihiisa sida dadka deegaanku ii sheegay waxaana guddiga wadadan dhisaysa iyo odayaashu codsanayaan in wax lagala qabto labadan dalcadood ka hor daamuurta wadada ujeedadayadu waxa weeye waa codsi iyo baaq aan u dirayno wixii danaynaya wadooyinkaada islaamku marayo wax kale leh iyo cid uga sukaysa midna ma jirto waxaanu codsanaynaa ninkii sadaqo ku darsanaya ninkii ka qayb qaadanaya inay obinto u furan tahay waxaanu rajaynaynaa in fayska dambena lagu guulaysto dhaqso baahi badanna ay daboosho waddadaasi iyadoo hawd oo dhan waddadaasi u baxayso iyo nugaal isaga shaqaynayso waxaan ugu baaqaynaa dadweynaha gobolka Sool Soomaaliya oo dhan wixii islaam ee dhabbada caawinaya maadaama ay tahay waxa weeye dhabbo islaamka oo dhan marayo sadaqa jaariye ah in laga qayb qaato beeshuna maadaama hawsha ay bilowday ummadda islaamka ah ee gobolka Sool kama laha islaamka marayo dhan kama laha laakiin buddig bay u tahay waxaan leenahay qurba joogta beesha iyo guda joogtaba awalna way ka qayb qaateen oo horay u bilaabeen oo xoolahoodii u geliyeen haddana waxaanu jecelnahay iyadoo xilli adag lagu jiro inay ka qayb qaataan siiba qurba joogto door muhiim ku lahayd dhabadan oo lacagtii ugu faraha badnayd ee dhabadan ay iyagu bixiyeen haddana baaqoodu uu gaaray gudiyadooda wadadan waxaa keenay dad kastaaba ay xilqaamay baahidii loo qabay iyo jid xumadii dalka haystay oo dhibka baabuurta iyo dadkuba ka gaari jirtay baahideeda keentay hawlgalkiina wakaasoo meel wacan buu marayaa hadda uun israacintii bay u baahan tahay dadka ehelka ee awalba hawlgalay iyo dadka islaamka mid walba inuu ka qayb qaato sidii hore baanu u rajaynaynaa haddii aan la idmo annana waxa iyaga hantidayada iyo naftayadaba diyaar baanu la nahay culimada ayaa dhankooda dadka ku baraarujinaya muhiimadda ay leedahay waddo la wanaajiyo markuu iimaanka rasuulku tilmaamayay waa dhowr iyo 60 ama waa dhowr iyo 70 qaybood waxaa ka mid ah waddada oo la saxar tiro oo wixii dadka iyo dunyada iyo caafimaadka iyo wax walba dhibaya in laga duwo bal rasuulku wuxuu sheegay kaleey salaatu wasalaam sadaqad inay tahay sadaqaadka ilaahay loogu dhawaado kamida wadooyinka oo la saxar tiro oo laga shaqeeyo oo loo dhib yareeyo makhluuqu isugu gudbo dad iyo dunyaba ugu liibaana iyo dabad islaamku muslim oo dhan baa marayo wata gaadiidku qulqulayo waxa weeye lama kala laha insha Allah ta'ala waxaanu codsanaynaa dal iyo dabadba insha Allah ta'ala wadada in laga soo qayb qaato in sadaqa jaariya qofkii maarta wax la baxayo waalidkii maarta qofkii sadaqa u la baxayo inuu wadada u galiyo uqaashu waxa ay Soomaaliland uga mahad celiyeen gacantii ay ka geysatay intan wadada la dhisay waxaana ay ka dalbanayaan in ay qayb ka noqoto dhamaystirka jidkaasi cid kasta oo ka qayb qaadatay waa sadaqo jaariye weeyaan ka qayb qaadato wadadaas ummadda oo dhan bay ka dhaxaysaa cid gaar ah ma leh jamhuuriyadda Soomaaliland wadadan baahideeda muddo badan baa loo soo bandhigay waxaana way qabteen fiican wax badanna waa harsan yihiin in la dhamaystiro oo ay dhamaystirto oo iyada sharaf tahay deegaanka sharaf tahay ay wadada gabagabeeyaan baanu rajaynaynaa oo madaxweynuhu ugu horeeyo waxaan leenahay cid kastoo hawsha wadada ka shaqeysan Ilaahay khayr ha siiyo waanu soo dhaweynaynaa gobolka Soomaal haday tahay deegaanadiisa waa u furan tahay ciddii ka qayb qaadanaysa Ilaahay khayr ha siiyo aan leenahay Ilaahay waxaan ka baryaynaa wadadaas mid lagu guulaysto ummadda anfacada in Ilaahay ka dhigo oo dadka oo dhan Ilaahay deegaanka dowladda deegaanka Soomaaliya isku xidhaaye khayr iyo wanaag soo korsama Ilaahay ka baryaynaa waana salaamayna cid kasta oo warkayga u gaadha soo dhaweysa isu taagtana waxaan leenahay khayr Ilaahayna siiyo mahaddeedana Ilaahay iska leh waana u ducaynaynaa cid kasta ka qayb qaadata marka laga yimaado jidkan oo 12 kiiloomitir yahay waxaa geed qaadan inta ka dhiman Kalabaydh oo 32 kiiloomitir jirta ujeedku waa in laami laga dhigo jidkaas isku xira magaalooyinka Laascaano iyo Kalabaydh